taxanaha tashajaab wadanis arka ayuu sii galayaa ama jacayl qoto dheer marmarka si dambeysana waxa uu sii yeelanayaa xamaasad inta aynu u gudagelin sheekooyinkiisa iyo xogaha cusub ee ka soo baxay. haddii aad ka mid tahay kuwa taxanahan xiiseeya laakiin noo soo muuqaalka haddii aadan naga mid ahayn channelka subscribe si aad inooga mid noqoto asxaabtaada noo sii share karee aan ugu dagalno marka muuqaalkeena. mawduuca koowaad ama qaybta koowaad aan ka hadlayno waa Eleni goormay ogaa doontaa waalidkeeda in dhaleen yacni labadan oo marna istagaalsan marna yaa jacayl isku muujinaya ee Caadil Kojaari iyo Asmaa ah. daawadayaasha waa ay ka yaabeen marba marka si dambayso sheekadu sii fogaanayso ilaa ay ayagana ilaa hadda is ogaan yacni Eleni aysan ogaan inay dhaleen labadan. marka dib ayuu isugu laabtay qoraalka sheekada waxaana wax badan ka bedeli doonaa sida ay u socoto in qoyskan weli ay sii kala fogaadaan. wuu iska soo gabagabin doonaa oo waxa uu ku dadaali doonaa xalqooyinka soo socda Eleni inay ogaato inay dhaleen labadan waalan ee Asmaa Fortuna iyo Caadil Kojaari kala ah. sirweynna waa ay soo bixi doontaa midaasina taa waxaynu ku gaari doonaa waqtigeeda kole ilaa hadda lama sheegin waxay noqon doonto. sidoo kale doorka Faatix Fortuna isagana ma uusan dhiman. dhowr mar waa soo tabiyey dhowr jiraarna waa sheegay laakiin inta badan waxaa lagu dhaxno noqonayaa labada jilaar. kii hore aan u sheegay ma uusan noqon ilaa haddana actor si toos ah amaba loogu doorin laakiin maalmahan Buraak actor lagu magacaabo asana labadooda waa arkayna kulli doorkan qofkii loo dhiibo marba qof baa lagu tuurayaa. sidoo kale haddana waxaaba jirto waxaan soo baxday taasoo sheegaysa in Caadil Kojaari uu leeyahay walaal weliba mid nin ah yacni waa aragnay Faatima laakiin hadda waxaa dhiman wiil. sidoo kale waxaa la sheegayaa in magaciisu uu yahay Kokhan. taxanahan wuu ku jiraa nin lagu magacaabo Kokhan waana midka Shariif Fortuna la socdo oo garabkiisa ah. dadka inta badan hadda waxayba indhaha ku hayaan ninkaas oo waxay u maleeyaan inuu asiga yahay oo dadka qaar waxay leeyihiin ayagoo weli wax hubin yacni qofka uu naqanayo waaba ogaay tageen kuwa qaar markii geesnimadiisa yacni ku isleeyihiin dabeecadda dhanka adeega iyo in ma aragtay uusan quusan yacni markii tusaale markii sirta xalqadaha 13aad miya ama 14aad mid ahayd markii loo qabanayo si biskoolada looga soo saaro kale sarfaad kaloo marna iyo inuusan sheegaynin yacni waxay marka isku dardareen isku dhufsadeen dhadhag markay kala siiyeen ummadan daawadayaasha baadin waxayba taagan yihiin waa asiga laakiin laga yaabo door kale inuu noqdo sidii ay qiyaaseen laga yaabo inuu noqdo oo walaalkiisa uu noqdo isaga. asxaabay bal adinka dhankeena maxaad ka qabtaan asiga miyuu yahay mise waa mid kale? waa inagu reebi kartiin waxay fikirkiinu yahay dhanka hoose commentiga. insha Allah anigana akhbaar walba ka soo cusboonaato waa idin la soo wadaagi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan. adinkana muuqaalka laakiin nasaara intaan ka kulmin muuqaalkiisa xigana waxaan idin leeyahay sida si nabadgelyo loftana sii dhig hala tagin.